Fanaanka lagu magacaabo Nimcaan Cabdiraxmaan Nimcaan Hilaac ayaa dhawaan waxa uu soo gaari rabaa magaalada Hargeysa, halkii hore ee laga eryay xilli uu fankiisa kasoo bilaabo bartamaha magaalada Hargeysa. Tan ayay dadka magaalada Hargeysa ku macneeyeen siyaabooyin iyo sidoo kale sheekooyin kale oo ka dhalan kara arrintan, iyadoo qaarkoodna ay leeyihiin Nimcaan xabsiga ayuu mar kale ku cabi doonaa liinta. Fadlan daawade, waxaan kaa codsanaynaa marka hore inaad muuqaalka like noo dhahdo, subscribe-na noo saarto, nagu soo biiro, comment noqo saaxiibada. Aan xogaha xaqiiqada halkan kula wadaagno. Nimcaanna waxa uu ka mid yahay fanaaniinta Soomaalida kuwooda ay aadka ugu jecel yihiin, qaasatan heesaha jaceylka ah. Nimcaan Cabdiraxmaan Hilaac ayaa dhawaan waxa uu soo gaari rabaa magaalada Hargeysa, halkaasi oo kasoo bilaabay tan iyo yaraantiisii barbilowga fanka. Laakiin dad badan ayaa su'aalo waxay isweydiinayaan Nimcaan oo hore uga cararay Hargeysa isla markaana nabadgelyo usoo doonta caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho, sidee mar kale ugu soo laaban doonaa halkii lagu xiray isla markaana dhowr mar oo ku rafaadsanaa. Iyadoo xusid ay mudan tahay inuu Nimcaan aad isla markaana oo u xusi doono dadka reer Muqdisho maadaama ay u istaageen isla markaana ay u abuureen inuu guud ahaan dalka iskaga baxo maadaama uu hadda ku nool yahay Canada. Laakiin Nimcaan iyo madaxweynaha Somaliland ayaa waxay ku wada warrameen qadka taleefanka. Ugu dambeyn waxaa lagu qanciyay in Nimcaan uu soo gaari karo magaalada Hargeysa, halkaasina uu ku qaban rabo isla markaana heeso kala duwan iyo sidoo kale soo bandhigidda fankiisa cusub. Madaxweynaha Somaliland ayay Nimcaan qadka ku wada sheekaysteen dhowr saacadood, maadaama Nimcaan Cabdiraxmaan Hilaac bartiisa Instagram-ka oo kaliya kusoo qoray erayo kooban oo u qornaa sidan: Hello Hargeysa, bye bye Canada, taasi oo dadka badi ku fasirteen in Nimcaan iyo sidoo kale dadka inta badan Hargeysa ee qalalaasada ama dagaalka kala dhaxeeyay hadda isfahmeen. Tan ayaana mar hore waxay ahayd isku dhac ka imaaday madaxweynaha Somaliland iyo sidoo kale Nimcaan oo laga eriyay guud ahaan carada Somaliland. Magaalada Hargeysa waa halkii uu fanka kasoo bilaabay isla markaana yaraantiisii iyo sidoo kale da'diisii intii ugu badneed oo kusoo qaatay, laakiin muddo kadib markay isku dhaceen xidigaha geeska iyo sidoo kale siyaasiyiin iyo weliba madaxweynaha Somaliland ayaa laga musaafuriyay, kadibna waxaa soo dhaweeyeen dadka reer Muqdisho. Laakiin markaan heshiis ayaa waxaa ka dhex dhashay madaxweynaha Somaliland iyo Nimcaan Cabdiraxmaan Hilaac oo lagu soo waramayo toddobaadkan dhammaadkiisa inuu imaan doono magaalada Hargeysa.